sidee loo sameeyaa Excel automatic border sidan oo kale. ugu horeyn hadhay area aad doonaysid in la kusoo dirtid automatic bordering kadibna dooro conditional formatting kadib waxaad kasii doorataa new rule waxaad kasii doorataa optionka ugu hooseeya kadib boxkan yar waxaad ku qortaa qaacidadan gaaban inta markaa dhamayso doorasayka waxaad ka reebaysaa numberka kadib waxaad sii dooran doontaa qaybta formatting waxaad dooran doontaa borders inta u baahan tahay anigu afartigiis baan u baahanahay kadibna okay baan leeyahay kadibna okay kale ayaad sii dhahaysaa automatically hadda waxaad arkaysaa in automatic bordering uu ku jiro area in harayna select karayna si fudud ayaa hadda dad ugu soo dardari kartaa waxaad rabtaa ku samayn kartaa simple and easy haddii aad muuqaalka ka faa'iiday copy link saddex jeer noo taabo follow dheh oo nagu soo biir haddii aad hore noola joogin like sana hayna ka ilaawin mahadsanid